barafkii ugu badnaa ayaa ka da-ay gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis. magaaladani waxaa degan dad Soomaaliyeed oo lagu qiyaasay 70,000 balse saakay qof salaad subaxdii u soo kaca ayaa la waayay. dhammaantood waxa ay joogaan guryahoodii kadib markii idaacadaha iyo telefishinka la iska arkay gobolka Minnesota uu u sheegay inay dadku guryahooda joogaan. 19 sano ka hor ayuu barafkani dhacay. dhammaan alaboorada wadooyinka kuwa tarnimada kulli waa la xiray. dadka Soomaaliyeed qaarkood ayaa qaarka kale telefoon u diriyay iyagoo u sheegayay maantay la socon karo maayo waa inoo maalinta berita ah. haddaba haddaynu nahay bahda Universal TV qaybtiisa North America ayaa nasiib gurigeyga hortiisa waxaan la dhex galay kaamarada waxaan arkay laba oday oo Soomaaliyeed oo ka yimi midna masaajid u socdo midna uu caano doontay. labada oday ayaa wareysi ka qaaday waxay ii sheegeen in noloshooda barafkan oo kale aysan arkin. bal Umar nooga waran maanta xaaladda barafku maanta waa xun yahay aadna waa xun yahay ilaa shaaxba maan cunin iminkaan sii dhex jiiray iminkaan xabada caanaa soo iibsaday waana biskii baana xanuunsanaynaa saasaanu noo hayaa barafkii ilaahay ha naga qaado barafka. adeer maxaa adeer bal qabowgan ka waran qabowga ka waran dadka u sheegay war Afrika u sheeg war Afrika u sheeg balaatan aan arag war waxa kan Afrika bal adeer ka waran war waxa kan u sheeg bal nolosha ka waran war waxa kan u sheeg haye u sheeg maxaan u sheegaa waxaan haysta u sheeg iyo dhibaatada meesha ku qabno haye hada u sheego dadku waxa tirada guryihiina iska joogay Afrikadiina ha soo bixin adeer ka waran marka kugu horeysa baraf noocaan arag laakiin kan waa maanta waa waqti ugu badnaa weeysan u maleynahay ilaa 20 inji ayuu gaaray dhamaantay marka hadda xagga u socotaa hadda waxa rabaa masaajidka inaan baladan gaari karo waa isku dayayaa hada soo masaajid u gaaraysan ila idaacadaha dhigaysan waxa la yiri dadku guryahooda ka bixin masaajid la yiri ha ka soo noqonaa yaade noqona xaggaala iga galay anu masaajidka tagaya adeer bal xoogaa wax nooga taawataa inta noloshaada kanoo kale ma arag wali ma arkin kanoo kale wali sanadka hore saas oo awu badnaa laakiin kanoo kale ma ahayn maanta والله صاحبه وأنا قهرت واحد لها السعيد علي بعر ولي جاي برا كانوا كلام ما أعرف قدن كنا وحظوا هالسنة واحد كير بنشوي قد وجد باورتي واحد هالمتر بهوستي جاية ما قرت أعرف رول درفا وتي واحد قارجين واحد وأسمى يضيع معك سوق حي مركا واحد الحمد لله رب العالمين بس كان والله شو واحد أدونك هاد ميل بيكون جريسة واحد كانوا كلام ولي ما أعرف سهريرة dadkana waxaan anugu ka codsanayaa inaysan waxa weeye soo bixin guryahooda ka soo bixin baan ka codsanayaa alxamdulilah rabbil caalamiin laakiin ilaa caawa iska dhamaa. haddaba maantay waxay ahayd maalin dadkii Soomaaliyeed ka yaabisay isagoo barafka uu marayo 20 iyo 25 inji isku soo wada duub dhammaan dadkii reer Minnesota ayaa maanta guryahooda wada jooga. dhammaantood waxay eegayaan dhinaca TV-ga xilliga baabuurta la xaaqi doono ama xilliga barafka la xaaqi doono. sidoo kale waxa ay la yaaban yihiin in snow emergency uu dhici doono goordhow taasna qof walba gaarigiisa uu duugmay. tan ugu yaabka badan waxa ay tahay lacagta marka laga jiido gaariga waa $200. dadku walwal ayay ka qabaan xilliga lagu dhawaaqi doono snow emergency-ga oo ah in baabuurta laga qaado wadooyinka ama ha noqoto dhinaca midigta ama ha noqoto dhinaca bidixda. dadka Soomaaliyeed ayaa qaarkood baabuurtooda xilligani jafaya iyagoo doonayaba inay meel fiican dhigtaan balse hawada ayaa u diiday taasoo wili u socdo. waxay idaacaduhu sheegayaan in 18 saacadood soo socdo oo barafkani do'i doono. Sakariya Aadan, Universal TV, North America.